Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada programkeena ku saabsan maanta khasab ku qaadashada caruur Soomaaliyeed. Waxaa programka maanta idin wada waa aniga, waxaana marti noogu ah Xasan iyo Maxamed Yaasiin. Waxaan ka hadlaynaa caawa caruuro badan ayaa jirta oo laga qaatay waalidiin badan oo Soomaaliya, iyo waxaan ka hadlaynaa sababaha loo qaatay caruurtaas iyo sida ay ku dhacaan sharciyada ku saabsan arrimaha lagu qaato caruurta iyo xalka meesha laga raadinayo. Su-aasha ugu koowaad haddaan ku bilaabo, haddii aan Maxamed weydiiyo, waxay noqonaysaa sababta loo qaato, maxaa loo qaataa caruuraha looga qaataa waalidkooda, xageesa dhibku ka bilowdaa? Haddii aan ku weydiiyo Maxamed. bismillaahi raxmaani raxiim. horta mawduucan caruurta la qaadanayo waa mawduuc aad xasaasi u ah, oo annagana aan ku jirnayo intaasoo sano hadda, 3 sano 4 sano camal aan ku jirno. qaarkeenna oo media ku jiraanna ka badan ay ku jireen. marka mawduucan ka hadlayno waa mawduucan soo baarnay oo aan la hadalnay dad takhasus ku leh, macallimiin, shooshalayaal, maxay ahayd, dad iyo wixii ku dhaceen, dad systemka ka socdo. So waa mawduuca adiga 3 sano 4 sano aan soo baaraynay. maantana waxaan rabnaa inaan iisoo bandhignayo sababta ila waxaan la kulannay iyo waxaan soo ogaanay. horta mawduuca caruurta lagu qaadanayo wuxuu ka socda sharci. waxaa jira Denmark oo la dhaho service loan, oo dhahayo haddii la dareemo inay caruurta caafimaadkooda iyo horumarkooda uu ku jiro risk ama dhibaato ay ku jirto, inay waalidkaas laga qaado. isla sharcigiina wuxuu sheegayaa dhibaato haddii guriga uu ka jiro waa inay laisku dayo dhibaatadii intiis caruurta la qaadanin inay lagu xalliyo ayagoo waalidkood la joogaan. annaga marka sheekadan aan barnay oo waalidiin badan aan la hadalno, waxa ogaanay sharciga inuu sharci macquul yahay oo sharciga oo qofka xaqiisa siinayo, laakiin dadka sharciga fulinayo inay sharciga sidii la rabo looga soo bixin. yacni dad badan waxaa jiro oo sharciyaasha aqoonin, ayagoo xataa caruurtii la shaqaynayo oo caruurtii meeshii la geenayo iyo wixii oo ayaga mas-uul ka yihiin, welina sidii sharciga loo rabay kuma dhaqmayaan. haddii aan ku weydiiyo yaa waay marka dadkaas oo ilmaha la shaqeeya? maxaa ku wadaa macallimiinta iskuullada miya? maya. horta sida caruurta loo qaato waxay ku imaataa inay dacwo la sameeyo, ama inuu qof uu dhaho, ama macallin ha ahaado, ama dhakhtarka ha ahaado, ama ha ahaado qofku oo diris aad tihiin. hadduu qofkaas uu dareemo inay dhibaato jirto, inuu ku dacwey karo. una qaadningaan lahaa wuxuuna ka hadlaa inay cunugan uu walwal uu ka hayo sida loola dhaqmo iyo dhibaatooyinka kula jiro. markaas ka bacdi kumuunaha ama shooshalada kumuunaha u fadhisaa bilaabayso marka inay baarto waxaan ma waxaa ka jira mise wax kama jiraan. marka haddii intaan sheekadan kale usoo noqonaya, laakiin sharciga sheegayo inay haddii caruurta la dareemo inay dhibaato jirto guriga inay laga qaadi karo waalidkood. su-aasha xasan kusoo dhawow programka. waa mahadsan tahay. haddaad sharciga ku daro uu sheegaya service loan ama uu adeegaha bulshada waxa la yahay qodobka 58 oo ah haddaa cunuga laga warwarsan yahay ama looga baqanayo in lagu xaliyo hawlaha ama dhibaatada ka jirta cunuga guriga dhexdiisa haddaan lagu xalin karin in laga qaado. taas baan ku daray insha Allah. su-aal ayaan idin hayaa, marka labadiina waa midba markiisa ha ka jawaabo. waa kuma yani qofka ama waalidka u nugul in si sahal caruurtiisa looga qaato? haddii aan Maxamed ku bilaabo,
inkastoo uu la soo shaqeeyey waalidiin badan iyo iskuulka soo shaqeeyey waa kuma waalidkii ay u sahlan tahay in ilmihiisa laga qaato waalidiintu way kala duwan yihiin horta annaka 5 magaalooyin camal aan tagnay oon ka hadlayna mawduucan dadka badankood waxay aaminsan yihiin iyo haddii qof uu cunug laga qaado inay yihiin waalid xun ama waalidiinta xun leh inay carruurta laga qaato laakiin annaka waxaan soo aragnay inaysa saas ahayn oo dhibaatooyin badan jiraan haddaa u fiirsano dadkii hore oo Soomaaliya inta Denmark usoo guuray waalidiinteen camal waalidiinteen iyo dagaal iyo qaxi ka imaadeen markii dagaal iyo qax ka imaadeen waxay imaadeen waddan isku luuqad ahayn isku diin ahayn iyo isku aragti ahayn taas waxay iyo waddan ka xoog badan oo yacni power leh oo sharciyaashoodii iyo wuxoodii oo dhan u dejisan yihiin taas waxay keentay marka inay dadkii waalidkeen iyo dadka kaleba inay fahmi waayeen waxa laga rabo iyo wixii xaq u leeyihiin sidaas daraaddeed waxaa imaatay inay la cabsado inay wax qof walba isku dayo intuu asaga haysto inuu ilaashado oo yacni cabsi gasho haddaa fiirisid waalidiinta badankood carruurta laga qaato waa waalidiinta luuqadda aqoonin luuqadda deenishka aqoonin maxaa sababaya marka in lagu degdego waalidiintaas oo aanan yani oo waalidiinta kale laga xigsado oo ayaga markasta dhibka loola beegsado sababta keenaysa waxa waaye ma oga wixii xaq u leeyihiin iyo xaqa lagu leeyahay sidaas daraaddeed shuruucda marka waxaa dhici karta qofka hadduu cabsanayo ileen qofkii haddii kumuuno ama dowladdii u imaato uu cabsisho ku jirto wuxuu sameynaa go'aamo uu hadhuuti ka shalaynayo wuxuu isleeyahay dadkan wax kastii og yihiin waxaan waraaqdan saxiix ama sidaan sameey sidaas daraaddeed qaladaad badani ku dhacayaan tan kalena sida ognahayo dadka deenishka qofka haddii la hadli karin oo relation ay samey karin dhaqsi ku degdegaan hadda qofka hadduu luuqadii yaqaano dhaqankii yaqaano sidii dadka la iskaga celiyay yaqaano looma soo degdegayo laakiin qof oo luuqadii iyo dhaqankii aqoonin oo cabsisho ku jirto oo welina waxaa dhici karta hooyo keligeed inay tahay oo 5 carruur ii haysato markaas in lagu soo degdegay noqonaysaa su-aasha aan hadda rabo xasan inaan weydiiyo oo dhanka sharciyada ah waa maxay yani waajibka laga rabo iskuulka maadaama uu ilmihii waalidka u dhigto yani waajibka ku aadan familka oo dhanka kalsoonida iyo dhanka haddii ilmihii lacala uu macallin kalsooni ka helo uu u sirbaxo ilmihii sharciyan ahaan iskuulka maxaa waajib saaran ama macallinkaas maxaa waajib saaran si uusan informationkaas uusan khalad ugu isticmaalin maxaa yeelay horta waajibka saaran ee cusub ee la sameeyey sanadadii cusbaa ama sanadkii ugu dambeeyey horta waxa weeye qof kastoo ka shaqeeya ama kalkaaliso ama carruur ama dhakhtar wuxuu doona ahaadee dowladda u shaqeeya waxa saaran sharci adag oo sheegaya inuu qofka hadduu ka arko ama ka dareemo inuu wax khaldan yahay carruurta guriga ama uu dhibaato haysto ama uu uskal ka arko ama wax lamid ah warwar ka arko cunuga in la sheego weligii way shirta sharcigan laakiin waa la sii geejiyey sanadkii ugu dambeeyey oo la yidhi qofka hadduu dowladda u shaqeeyo inuu sheego weya hadduu sheegi waayo isagaaba 6 bilood la xidhaya qofkaas markaas taas waxay keentay in lagu degdego ama la qaado ciyaalka degdeg ama cabsi ayagu cabsanayaan inay maxay ahaday in la xidho waayo sharcigu sheegay haddaanan macallin lahay aan arko cunug dhibaato hayso haddaanan sheegin aniga khatar geli kara hadda la ogaado adaa ku wata xasano su-aasha aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay kalsooni hadduu macallinku uu ka helo arday ama uu ardaygii u sarbaxo ama arrimo gurigiisii ka jira u sheego waa kalsoonidaas marka inuu macallinkii uu si kale u isticmaalo uu waalidkii ku isticmaalo sharcigu muxuu ka dhigayaa sharcigu sheegaya ama kalsooni cunuga ha ku qabo macallinku ha u sheega sirta hadduu cunug macallinkiisa ku konsool ha u sheego waa la itilaa guriga macallinku uma qarinaya sirta waayo sharcigaa sheegaya inuu sheego soma marka si kastaba kalsooni ha ugu qabo waa la sheegaya hadduu u sheego dee waxa uu ka warwarayo ama waxa uu arko macallinku warwar markuu sharcigiisa dib isugu noqdo marka sharcigaa sheegaya dee macallinka inuu sheego kalsoonida kuma xidhna ama kalsooni la'aan haddaa wax yar inta ku daro
haddaa fiirisid iyo sharcigan iyo denmark oo dhan uu ka jiraa awalna saas looma isticmaali jirin marka waxaa isweydiinta leh maxaa keenay hadda inay saas loo isticmaalo wax badanaa isbedelay markii la fiirinayo qaybta sharciga haddana maxay ahayd awal haddii uu macalinka uu dacwo uu shakiyo ama uu dareemo inay cunugan uu dhibaato ku jiro wuxuu la hadli jiro waalidka uu baaritaan uu samey jiray kabacdi uu dacwada gudbi jiray hadda waxaa imaatay marka wax la dhahayo iskacabir ama wax extra ah oo keenayo qofkan hadduu ku dacwey waayo oo hadhowtay wax dhacaan inay asaga dhibaatada u imaanayso tan kalena jirtan waxa waaye waxaa la sameeyey sharci la dhahayo Ghetto-park-gahaas wuxuu khuseeyaa ajnebiga degan meelaha la dhaho ghettoga meelaha ghettoga la dhaho iskoolada ka jiro extra loo soo fiirinaa carruurtii yacni dee waxaa xataa la sameeyey inay la dhaho cunugii hadduu 1 sano uu gaaro inay iskool lagu bilaabo uu guriga joogi karin hadduu guriga joogo inay laga bedelayo inay lacagta laga goosanayo waalidkiisa shuruuc badanaa imaatay marka oo keenayso inay dadka ajnebiga oo Soomaalida iyo meelahaas degan inay duwan lagu sii hayo so sidaas daraadeed macallinkii waxaa dhici karto inuu ku degdego inuu dacwadaas bixiyo intuu fiiri lahaa inuu maxay ahayd uu baaro ma dhacdaa in la qaato ilmo aan la hubin inaysan ku saxsanayn qaadashadoodu oo markaasna waalidkii laga qaato xasan haddaan weydiiyo su-aashaas intaan ka jawaab intaas waxaan odhan lahaa in yaroo maxay hayday marka dee iskuullada iyo maxay hayday dadka dhaqanka Deenishka lala qaadayo Deenishku khalad badan bay galaan iyagoo dee aan difaacin laakiin bini'aadnimo maadaama Maxamed suu sheegayo stress badan dhacay oo dee dhibaatadii wax badan lagu soo shubay oo wax badan laga rabo macallimiintii taas ma cudur taaraysa inay khalad galin su'aashaada ma dhacdaa in ilmo khalad lagu qaato uusan macallinkii hubin yani oo shaki ahaan waan ka shakisanahay laakiin ma hubno waalidka wax khalad kuma hayno laakiin haddana waan ka qaadaynaa baaritaan baan sameynaynaa dad badan baa kolay odhanaya ma dhacdo markan hadal la yidhaahdo laka way dhacdaa haddaad gareeqaanada sheegaysida way dhacdaa waxay u dhacaysaana oo haddaad si caqliga u fikirtid waxa weeye hadduu maxamed wuxuu sheegay inay ay degdeg u qaadaan ama degdeg u qoraan maadaama sharciga la geejiyey taasi waxay keenaysaa khalado badan oo ay gelayaan khaladkaasoo ka mid a ciyaalka in la qaado iyagoo aan runtii ciyaalka maxay waxba aan lagu haynin marka taasna waxaan u odhan karaa anigu khibro badan baanu leeyahay waan arkay meelo badan baa ka qayb galay waxaan arkay khalado badan riboodyo badan baan akhrinay waxaan arkay khalado badan oo la galo laakiin khaladkii hadday galeenba dowladda hadday yihiin ma qiranayaan inay khaladkii galay waxay wadayaan tareenkii ama waxay wadayaan sidii uu dee sharcigu u socday markaa waxay tegayaan makaxamadihii oo dhan haddaa laga soo wada badiyo way ku adagtahay inay soo celiyaan ciyaalka laakiin way soo celin doonaan laakiin mar la baaba'ayo ciyaalkiina milmeenoo dee ay ciyaalkii aan ahayn ama aanay rabin hooyo soo noqdaan ama abuu soo noqdaan ama aanay garanaynba afkii baa dhacday in loo soo celiyo ciyaalkiioo la baaba'ay marka wax shiro weeye khalad badan bay galaan ma lihi khalad maxaa ciyaal baa la qaadaa sax lagu qaado taas ma diidayno laakiin marka la eego waxay badan tahay khalad badan ay galaan xaqiiqan su'aal kale ayaan ku weydiinayaa xasan oo ku soo noqonaya maxamed inta badan waxaa laga hadlaa xuquuqda ilmaha uu leeyahay markii waalid saasa lagu degdego aanan la hubin yani sharciyan ahaan in laga saxsan yahay xuquuqda waalidka isaga uu u leeyahay ilmihiisa maxay dhigaysaa sharciga maxaa carruurta ama sharciga xaqu insaanka carruurta badanka ka weyn waalidka marka dowladdan dhan maarig la eego oo ka waalid xaqiisa xaqiiqan marka badanka waalidku wax badan oo uu samayn karo inuu la shaqeeyo dowladda oo hadduu la shaqeyn waayna xoog looga qaado cunugga oo aanu arkin cunugga oo dee gebiisaba laga qariyo ama inuu la shaqeeyo taas waxba uma dhexeeyaan marka carruurta maxay xaquuqdooda aad iyo aad u adag ma la jabin karo taasna aad bay u isticmaalaan si cadaalad la anusaan u ark maxamed haddii aan ku weydiiyo adigana yani arrimaha ku saabsan yani caawinta ama waalidkaas
inta badan u nugul dhibaatooyinkaas inay ku dhacaan waa maxay waxyaabaha u badan yani ay tahay inay kula dadaalaan ilmahooda si aysan dhibaatooyinkaas uga dhex dhicin ayaga ilmahooda iyo iskuulkii horta intiisa laga hadlin xalka muxuu yahay horta marka ugu horeysa in dhibaatada la fahmo waaye intii dhibaatada ka imaanaysaa maxay ugu imaanaysaa horta inay meeshaas la fahmo waaye dhibaatada ugu weyn oo waalidiinta badankii aan la xiriirnay waxay tahay waa luuqadda deenishka qofkii hadduu luuqaddii aqoonin uu ku cabiri karin wuxuu dareemayo iyo wuxuu rabo uu maantoo dhan lala sugaayo turjumaan ama qaladaad laiska fahmayo qofkaasiyo maantoo dhan dhibaatuu ku jiraa tan keenaysana waayo inay carruurta badankood la qaato sababta keenaysana waxa waaye qofkan oo kumuunaha u fadhiyo wuxuu leeyahay waxa la dhahayo bilearningsplict ama inuu qofkan u sheego uu u sheego okay haddaa saan samaysid saanaa dhacayso haddaa saan samaysidna saan kalaa dhacayso laakiin taladaas maba imaanaysa ila labadii qof ma isfahamsana qofkiina de haddii la fahamsanayn oo la rabo inay go'aan isla markii la qaatay oo turjumaan la haysanin oo qofkiina asagana cabsi ku jirto qaladaad badanaa dhacayso dadka qaarkoodna waa fahmi karaa laakiin dhibaato weyn waa yacni qofkii markii afaarihiis la soo galo oo dacwo imaato isla markii caawitaan ma raadsadaan waxay ka cabsanayaan war maxaa liiga sheegi doonaa maxaa liiga aamini doonaa dadkii miicayd yacni fikrado kaliya ka fikirayaan waana qofkana bini'aadankana waa runi waa fahmi karaa laakiin maalinta ugu horeyso haddaa xal raadsan weysid 2 bilood 3 bilood kadib xalka inuu imaado way adag tahay so waxaa dhici karta inay dhibaatooyinkooda qarsadaan kow tan labaadna luuqad ahaan inaysan fahamsanayn waxa laga rabo qofnana uma sharxayo dhibaatooyin kaloo meeshaan ka jirtana waxa waaye turjumaaniinta la isticmaalo oo dowladda ay isticmaasho sidii warka loo rabay uma turjumayaan ma dhahay kulligood laakiin dhibaatooyinka ka imaata waxa dadkii information qaladaa la siinaa waxaa leedahay yani dhalinyartii wax tarjumaysay dadkii waaweynaa luuqadii si fiican ugama dhaadhicinayaan fahamkii ama luuqadda sharciyadii wax lagu sheegayo waxa lagu haystaba si yani sidii sharci ahaan uuma sharaxayaan waxay lagu haystay tan kale waxaa jirto dadka looyaryaasha oo dadkan difaacayo dad ku takhasusay ma aha badankood qof lista ku jiro waaye oo dowladda dalbanaysa dhehayso qofkaas ma rabtaa oo haa iyo mayaa dhehaysid haddaa xataa lawyer fiican aad dalbatid maxay ahayd isla lawyerkii kuuma imaanaya wuxuu kuu soo diraa qof kale oo tababar ku jiro oo heerkii gaarsanayn so qaybta lawyerkan waa inay laiska fiiriyo qaybta luuqaddana waa dhibaato taasna waxaa looga hortegi karaayo isla maalinta ugu horeyso lagu waco inaa wadatid qof la dhahayo bisira ama qof oo garabkaaga fadhiyo oo luuqaddii yaqaano oo sharcigii yaqaano su-aashaan rabo xasan inaan weydiiyo ku dar haddaan ku daro maxay hayday garyaqaanada uga hadlaya maxamed waa sax hadalkaasu garyaqaanada badanka iyo kuwan fadhiya kamuunka go'aansanaya haddaa carruurta la qaado marka ugu horeysa kusoo noqon doona insha allah waxa weeye badanka dad aan khibrad u lahayn garyaqaanadu khibrad waxay u leeyihin waxbay soo barteen kuwa fiifiicane waxaan carruurta qaaditaankana soo barteen xilli ma hayaan hadday adiga kuu noqdaan maxay hayday garyaqaan waa laga yaabaa 2 maalmood ama 2 usbuuc oo aad tegaysid meel lagu imaado ama waxay kala dooranayaan inay maxkamadda sare tagaan maxkamadaha yaryarna ay iska gooyaan oo qofka loo dhiibaan macni ma haynaanu qofka garyaqaanka loo dhiibay inaanu isagu aw tababar yahay laakiin waa garyaqaan laakiin kuma soo takhalusin waxan aw carruurta qaaditaanka marka taasna waxay ku xidhan tahay reerka ama dadka la talinaya ama dadka garabkooda fadhiya ama dadka maxay hayday dheeshka yaqaano oo odhanaya aniyow ninkan garyaqaanka ma ku takhalusay maxay hayday waxa rabaa kii saxda ay soo dir in laga yeelin oo la yidhaahdo okay haddaad xili haynin maalintaas markaa bedel la hadal kamuunka macmal la hadal meesha maxkamadda sare kudhe ma rabo maalintaas adigaan ku rabaa haddii kale ma tegina meel haddaad ku haysan intaas way iska bedelayaan waayo dee lacag bay shaqaysanayaan walaalayaal aan runta isu sheegno marka ummadda maqanayaan ciyaalka la qaadayo badankana dee systemka oo dhan baa saa u socda markaas waxa weeya
shirar baa lagu shiraa waa la wada xukuma shirarkii 10 subaxnimo la wada gelayaa meel kasta ahaato markaas way isla socdaan bas marka in aad u istiraahid way inaad istaashisid turshwaanadana saas oo kale Soomaalidu way kala xishoodaan war maxamuud hataan ku aqaan adigu aan anu qof la socdo garabkayga fadhiya oo aad turshwaanka si fiican ugu turshwayna Soomaaliga si fiican baa u taqaana laakiin deelishkii baad fahmay si fiican ama dhinaca kale waxaan qoranayaa de walaal shaqada soo qasho shaqo khalada ana gubineen naga bax meesha deelishkan oo sheegaya wax badan oo sheegay anigu mana qarinayo marka Soomaali ahaan ma haynan ku tagooraya ama ku caayay marka saaga dhahdo markaaga horeba ina soo gashay meeshan ma marka taas in xitaa la soo cadeeyo weeye waa arrin muhiim ah weeye yani meel gar lagu geynayo oo ilmo lagu qaadayo qofkii waalidkay ahaa oo luqadii aqoon waa in yani si fiican loo fahansiiyo oo looga dhadhiceyna tahay yani arrin waxaa sharci baa la goynaya su-aashaan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay xasan waxaad ka dhawaajisay xuquuqda waalidka uu leeyahay inay ka weyn tahay yani la qadariyo ayba kasii weyn tahay tan ilmuhu leeyahay haddii uu waalidkii ilmaha laga qaatay uu waalid muslim ahaa aanan lagu simin loona waayey dad muslimiina in loo dhiibo waa maxay intuu ayuu la egyahay xaqa waalidkaas in ilmahaas loo ilaaliyo diintiisa in loo ilaaliyo ama sidee ayay mana dhacdaa inay ilaaliyaan diinta horta marka dhan maarig la eego oo maxay dhan maarig waxayna barayna sida loo hadlo sida ay xaqa tahay ama sida afka uu qabtay sida loo hadlo markaas wadanka diinta ma aha wax ka jira gaaladu way maqlayaan waa la turshubi karaatan gaaladu anigoo caayeyn oo aan ilaalinayo oo aan takoore waxba ku sameyn oo aan xushmaynayo wadankooda waxa iyagu ma sheecla islaamka ma sheegayaan laakiin waxaan ka aragnaa sida ciyaalka u qaadayaan waayo sharciga hadaa la eego sharciga Yurub ka yaalay xaq insaanka waxa ku qoran iyo baaritaan maalin dhow ay sameeyeen maxay ahayd kuwa baaritaanka tirakoobka dhan mariga ee safiil ay dhahdo report kaas waa la qoro ajnabiga ka sameeyeen oo buug hadaa akhridid waxa ku qoran in cunuga la qaado la ilaaliyo afkiisa diintiisa dhaqankiisa loo daydayo reer muslima hadaa la waayo afkooda qaar ku hadlay qaar kaloo muslima loo daydayo laakiin goormay dhacdo weligeed ma dhicin mid malaa laga yaabaa soo heshid mid dif waa suurtagal moorneen dhicin way jirta laakiin way yarta waayo xaqiiqduna waxa weeye waxa la rabaa in la milmiyo ciyaalka lama rabo in ciyaalku dhaqankooda iyo diintooda hayaan waa marka runta soo sheegayno xaqiiqa marka laga dhuumanay waxba war anigoo cid ku dilayn dad waa wax jira hadaa taas fahamtanayn adiguna marka hadaa tahay qof garabka fadhiya aad la jaan qaadin siyaasadda de waa lagu marinaya wax kasta waad iska yaaba iska horta maxaad iska ruuxaysaa marka taasna in lagu adkeeyo weeye aan soo arko ya su-aasha rabo hadda maxamed inaan weydiiyo waxay tahay oo ku saabsan waalidka Soomaalida maxamed waxaan tagnay 5 magaalo oo wadanka ku yaala oo aan u soo bandhignay munaasabadan iyo yani info mudahan ah ku saabsanaa khasab qaadashada carruurta Soomaaliyeed in badan waxaan arkaynay in loo sheegay ama naloo soo dadku ay noo sheegayeen waa ilmo lagu qaatay khasab lagu qaatay ilmahaas inta badan waxay la noolaayeen hooyo keligood ah maadaama hadiiba hooyadii la yiri khalad bay sameysay waa maxay khaladka yani sababta loogu diiday ilmayaashaas ama aabihii meesha uga maqan yahay inta badan horta mawduucaas haddaan galno maanta ma dhammaanayso haddaa runta rabtid ileen mawduuc labada meelba si hooyadii aabihii si fiican loola hadlay u baahan tahay waa mawduuc aad iyo aad u dheer haddaan dhahno aabihii muxuu meesha ugu maqan yahay iyo hooyadii kelig ileen waa mawduuc aad iyo aad xaqiisii muxuu u maqan yahay uu isagii hadiiba la yiri hooyadii ha laga qaado maxaa qof saddexaad loogu geenayaa aabihii oo nool dhibaatooyin badanaa jiro halaa ka sheegaya for example annaka Denmark markaan degannahay waxa sidee isku aroosnaa islaamiyana isku aroosnaa sooma sida muslimiinta qod huuska lama tago la isma arooso taas waxay keenaysaa hadduu cunug laba qof oo diinta islaamka camal haddii isku uu wadaad aroosiyo uu hadhowti cunug dhasho cunugaas aabbihii toos uma qorno inuu aabihiis yahay waa inuu asaga dalbado waalidnimadiisa ileen dowladdii xagga dowladda labadan qofood ma isqabaan for example so
qofkaas waxay keenaysaa haddii isla markii uu dalbanin waalid aabinimada uu sugo oo waqti kala imaado inay xataa la cadday karo waalid inuu yahay dhib noqonayso xataa so cases badanaa jiro oo yani sidaan kugu dhahay mawduucan aad iyo aad ugu dheer yahay yani hooyi aabbo isku xanaaqa keliya ma aha tan kalena oo jirto kumuunayaasha maba raadiyaanba aabihiyo case hadda waxaa ku jirnaa oo maalin gabar kala hadlaynay uu aabihii isla magaaladii degan yahay iyo hooyadii laga soo qaaday oo aabihii loo gey karay laakiin maba loo sheeginba inuu jaaniskaas uu jiro uu aabihii gabadha aabaheed loo gey karo so mawduuc aad iyo aad u dheer waa saa kuu sheegay markii laga hadlayo nimanka iyo dumarka so maalin kale aan u dhigan aan ku dhihi lahay wada shaqaynta waalidka Soomaaliyeed maxamed maalin kale marka laga hadlayo carruurtan maxamed waxaan ku raacsan waxaad ku hadlaysid aabaha Denmarkna waa taqaanaa Denmark waxa weeye in aad soo doonatid way waxaad rabtid ma lagula soo doonanayo waqti markaas inay dad ku tarbiyeyno ama aynu ogeysiino maxay war aabaha carruurtaada la soco meel kasta aad joogtid carruurtaada la soco maxay hayday carruurta hadda la qaado gaalayna qaadato ma fiicna waan ka soo horjeednaa taas marka taas in lala socdo way intaas saabta waxaan dadka ina daawanaya oo barteena Facebook nagala socda waxay qorayaan Abshir Ibrahim ayaa wuxuu soo qoray maxaysan u baran Soomaalidu luqadaha wadamadeena ku noolnahay taas waa mawduuc dheer iyo waxaad soo koobno waxa weeye badanka kuwa cusub yimi qaar waalidkoo dhan maaha waa waalidiinta yadda dad hadday yimaadeen waaweyn horta marka runta sheegay cudurtaar sameeyna way ani hadda anigoo ahta u dhow maxayday daadii weyneed maxayday in laga tuuro maxayday indheerta oo ma leeyahay hindida way u adkaanaysaa afkana barto haddaan bartana waa kale waan jijibinaa si xun markaas in la socdo weeye deenishkuna af adag weeye marka yaan la noqonin cadaan sida cadaanka yaan loo hadlay anigoo caayay Soomaalida ma tan kale xataa horta haddaan waxay ku daro meeshaan dad badan waalidka Soomaaliyeed yani fikrada qalad ka aaminsan oo luqadii maxay u baro waayeen saan maxay u sameey waayeen ani iskoola ka soo shaqeeyay tababaro football ahay waalidiin badan la soo shaqeeyay contact person ahay intii waalidoo Soomaali la kulmay oo dhibaatooyin xataa ku jireen qaarkood wiligood waxay jeclaayeen carruurtooda inay ka fiicnaadaan ama carruurtooda inay meel sare ay gaaraan so waalidkan inay dhibaato geysateen maaha laakiin waxaa dhici karto inaysan fahamsaneen waxa laga rabo taasna wax kale waa qofkan hadduu inta imaado asoo 30 sano jiro 40 sano jiro oo la dhaho luqadii Deenishka haddana baro oo 5 carruur oo kalena kori ama sports schoolna aad yani way ku adkaanaysaa qofkan inuu luqadii u barto sidii qof Danish camal haddaad luqadan si fiican u aqoon markii la akhrinayo shuruucdan iyo way adag tahay aad u adag tahay qofka Danish qof weyn oo Soomaali inta soo weyn ku imaaday inuu luqadan perfect u barto aad u adag tahay kuma cabiri karo wuxuu aaminsan yahay qofkii ma sharaxi karo wuxuu rabo so ha iyo may iyo wuu sheekay karaa laakiin markii imaato sharci luqado oo adag ay ku qoran yihiin so dadka luqadii way barteen laakiin qof weyn oo inta imaada kama sugi kartid inuu Danishka perfect ku noqdo aniga waxaan la shaqeeyaa ilmahan la shaqeeyaa carruurta xanaana carruurtan ka shaqeeyaa waxaan inta badan arkaa yani ku degdega ilmaha Soomaaliyeed ama wax ka qoridooda ama shaki ka qaadidooda Soomaalina ma aha muslim oo dhan inay uga sahlan tahay dadkaan la noolnahay inay ilmahooda kale wax ka qoraan yani oo il gooniya lagu fiiriyo ilmaha muslimka oo loo adeegsado haddayba ka mid tahay waxyaabaha la yiraahdo social control ama arrimahaasoo kale la cuskado ayadoosan aysan meesha jirin waxaa laga yaabaa dhowr ajnabi oo saaxiibo islaa ilmo yariiso saaxiibo islaa in hadal loo qoro oo la dhaho waxaan u malaynaynaa siday ku socdaan ama siday korriimadooda u socoto inay jidka khalad ka socdaan oo yani lacala laga qoro inta badan yani waxaan u malaynaynaa mar walba ilmaha ajnabiga mala laga qoro hadday group ajnabi oo asxaab noqdeen yihiin waxaa laga yaabaa ajnabinimo inay u saaxiibeen ama inay isku xaafad degan yihiin la dhaho 5 ama 6 isla socota
inay yani dhanka khaladka u socdaan marka maxaad is leedahay xasan oo sharciga maxaa u sahlaya in mar walba aan lagu degdegin ilmaha yani caddaanka isagoo xataa waxyaabo khalad laga arko aan lagu degdegin oo lagu degdego tuhmidda soomaaliga ama ilmaha muslimka horta marka dhinaca dhenishka la eego badanka ciyaalka dhenishka badanka waxaa la qaadaa in hataa laga qaadayo dhenish cad ciyaalka badanka waxay u badan tahay marka la tirikoobka la eego waa qaar khamri caba ama qaar isbuda ama qaar xasheed ka dharkay ama qaar dila ama qaar kufsada si xun carruurta u kufsada waxaa sameeya bay ka qaadaan oo kuu raacsana ajnabiga say uga qaadaan si kale weeye waayo dee walaal haddaynu 10 sannadood ugu dambeynay dowladda Denmark eegna ama siyaasadda Denmark say u socoto waxay u socotaa in ajnabiga khaasatan islaamka loo arkaba inuu diinta iyo quraanka iyo waxaasoo dhan xadiisyada inay wadaan wax controla maxay yahay wax dadka leexinaya oo aan milmin karin muslimka aanay wadanka la jaan qaadi karin anagoo muslimood sugana salaad waan la jaan qaadnay wadanka taasna ma sheegayo hadda la eego 300 muslimka way la jaan qaadeen badanka wax yar mooyee walaa waxay yiraahdeen 98 way la jaan qaadeen hadda ajnabiga muslimka la eego laba boqolkii laba baa la jaan qaadeen marka lama eegay taas waayo oo tii ilaahay yiriyo siyaasadda gaalada ma ku jeclaanayaan markaas taasay wadaan xaqiiqan marka la sheego yani ka dhudhumanay mana ku dareeyo muslimka dadka gaalada markaas qof kasta oo muslima khaasatan waxa loo eegayaa inuu control ku jiro waayo aduu haddaan ku weydiiyey maxamudow carruurtaada inankaaga waad gudda marka sidaa xanaanadu geysid wax looga maxaad u gudda waa lagaa shakiyayaa waa lagu qorayaa lagama hadlayo qaar kale guda ma sheegayno magacyada laakiin lagama hadlayo ka kale guda aniga waa diinteeda inaan guda carruurtayda aniga xitaa waa lay weydiiyey ya marka inaynu inagu xitaa dib isugu noqonaan idhaahno anu horta muslim baan haws ku garsoona wax khalad laakiin haddii waa laga dooday arrintaas gudniinka baarlamaankuna waa diiday inuu laakiin waxaan ka wadaa muslimka badanka waa controlka lagu hayo oo la rabo haddaad inantada xijaab u xidhid ya maalintii ugu dambeysay ninkii laas aslan wakii kasoo sawirayay hablaha soomaalida yaryar mooshii la akhrideene aw sawir ka qaadayey aw lahaa iyadoo kulayla ayaa inantii yareed lagu xoog lagu isticmaalaya inay maxay xijaab xidhato ama ay xidhato masar markaas taas waxay sheegaysaa inaynu inagu muslim ahaan dib isugu noqono aan idhaahna muslimkii asalka ahaa maynu nahay mise ma nihin marka halkaasay ka wada biyo dhaamayaan gaaladu iyadu maxamed haye maxaad ka leedahay arrinta ani waxa u arkaa inay tahay dhibaatada waxay ka jirtaa fikradda laga aaminsan yahay sidee carruurta loo barbaariyaa ama sidee carruurta loo koriyaa waddankaana degannahay iyo waddan shuruucdiisa leh waaye dhaqankiisa leh aragtadiisa leh annakaana imaanay oo waa ka aragti duwannahay waa ka af duwannahay waa ka mabda' duwannahay waa ka diin duwannahay marka imaanay laba waxaa jirta marka ileen mar kastaba waxaana loo haddii aragtideena la fiicnaa lahayd waxay dhihi lahaa way qaada lahaayeen yo so dadkan dad oo aragtideena la fiican maaha laakiin laba waxaa jira marka dad waxay rabaan yo inay nagu bedelaan xoog sidaas daraaddeed buuka foobud loo sameynaa get to parking dadna waxay rabaan inay carruurtii bedelaan oo geeska iskoolka iyo ka bedelaan so dada waxay leeyihiin kuwa muslimiinta jecelaa jiro ama soomaalida jecel kuwana way necab yihiin saas ma aha ileen aragtida carruurta lagu tarbiyeeyaa ay meeshan ka imaatay hadda adiga cunugaaga waxa qofka soomaaliga iyo cunugiisa wuxuu rabaayo cunug oo iskoolkiisa ku fiican inuu noqdo diintiisii akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisaba inuu baro laakiin macalinka iskoolka markii carruurtaas loo keeno muxuu ka aaminsan yahay ilaa tvgii wuxuu ka arkay in hooyooyinkii lagu qasbay waxaan inaad dad oo social control aan samayno inuu jiro macallinkii fikrado qalad oo carruurtii ka aaminsan yahay markuu wax yar arko isla markii uu la boodaa asoo xataa qof xun ahayn oo rabin inay dhibaato u keen laakiin dee aragtida uu ka qabo tarbiyada iyo aragtida annaka aan tarbiyada ka qabnaa kala duwan so sidaas daraaddeed wuxuu isleeyahay cunugan dhibaato ku jira waxaa ka mid a dhibaatooyinka aan aragno waxa waaye qofka markuu 16 sano gaaro uu saaxiib yeesho caster ama girlfriend iyo boyfriend dad waxay aaminsan yihiin qofka markuu da'daas gaaro hadduu girlfriend iyo boyfriend uu haysanin waa qof wareersan annagana diinteena ma qabto waxaas
so gabadhii iyo wiilkii haddii lacalla waalidkoodii dhahaan aniga waxaas ilama imaan karta guriga macallinkii wuxuu bilaabaa qofkan waxaa lagu hayaa social control oo sidaas daraaddeed dhibaata gurigan ka jirto ama qofkii wuu cabsanaa so haddaa waxaas fahamsanayn markaa carruurta iskoolka u diraysid haddaa waalid tahay dhibaato weyna kaagaga imaanayso tan kalena waalidiin badanaad iskoolka imaadaan oo la socdaan carruurtooda laakiin lama socdaan wax carruurtooda la baro carruurtooda maxaa adduunka ileen taariikhdii soomaaliya lama barooyo taariikhdii islaamka lama barooyo maxaa la barooya inaa weydiisid hadhowtiina waxaa imaanaysa waalidkii iyo cunugii inay dhibaato ka dhex dhacdo ileen laba aragti oo kala duwan waaye so an waxaan dhihi lahaa waxaa dhan waxay ka imaataba aragtida laga qabo sida carruurta loo tarbiyeeyo waa maxamuud taftiya anu waxaa odhan lahaa maxamed uu sheegay xitaa waa lasoo qoray waan arkayey muhiimku waxa weeye in sida iskuullada siduu maxamuud sheegay la qayb galo oo maxaa laga qayb galo shirarka laga qayb galo maxaa lagu barayaa iskuulka maxaa lagu cunayaa wax kasta ood ka qayb geli kartaa mugta markaas inaad aad loo dhiirigeliya halkaas way fiicanta halkaynu ka badin karno wax badan oo aynu ka qayb geli karno dee aan noqon karno hogaankii halkaas weeye cabdinuur wuxuu soo qoray wuxuu yidhi ilmo badan oo deenishaba waa laga qaataa ma ku haysano innaga iyo deenishka waxaan kala duwannahay buu yidhi waa qasowsa waa resourceka iyo dabaqadda marka ayaguna kiisaskooda way u dagaalamaan yani haddaan wax yar aan ku daro baaritaana laga sameeyey Copenhagen Kommune 77 cases sameeyey carruur ku qaadeen waxaa la soo ogaaday markii la baaray 77 case in 77 case uu qalad ka jiray 77 case na ma ahayo kaliya ajnabi so Danish badanaa ku jiro haddii Danishkii qaladaad laga gelayo maxay kula tahay marka hooyo Soomaaliyeed oo luqadii aqoonin oo carruur badan haysato oo kaligeed degan qaladaadka laga gelayo markaas su'aal kale oo ka imaanaysa daawadayaashana Facebook carruurta dhigata private schoolka ka waran macaadiba yani markas ka waran macaadiba maxamed xuseen yani ma fahmin carruurta ciyaalka iskuulka private dhigta ma la qaado kooda ama iyaga ma saasa loogu badan yahay in laga dacwoodo يعني ما كان دولته ما كدع بديها مكودا كدع وديريا صاد كودا ور ما كايس دنكاس badanka maxay yahay iskuulada private ka waalidka way la hadlaan soo maxamed sheegay saanan u ogahay horta private iskuulada Copenhagen oo aan ka warhayo waalidku haduu shiro maxay yahay dib aw iskuulka u dambeeyo cunugku maxay yahay horta marka la eego laba dhinacna Danish way ku fiiceen iskuulada dhinac dawladdu dhinacna way ku xun dhinaca marka la eego cunugga haduu yahay cunug u baahan tarbiya fiican oo lacag badan lagu isticmaalo kolay way ka lacag badan yihiin oo way siinayaan private schoolku laakiin adiga iska adkaanaya badanka ma taageeri ciyaar laakiin ma sheegayna laakiin sharcigu wuxuu sheegayaa private schoolka inay iyaguna sharcigu qabanayo hadduu arko cunug la dayactirin in la isagana la sheego laakiin si aan u ogahay badanka waxay isku dayaan inay xaliyaan oo ay la hadlaan reerka ay yiraahdaan dhageysta waxaas jira ya siban wax xalinaa markay xalin kari waayaan bay iyagu gudbiyaan qaarna way ku degdegaan private schoolka way gudbiyaan oo kala duwan yihiin saan u go'rahay haddii aan galno dhanka yani xuquuqda waxaad tiri hadday Soomaalidu inta badan xuquuqahooda ma taqaano maxaa dadaal ah oo Soomaalida Denmark degan ay ka bixisay yani dadka yani Soomaalida ama walaalahooda ama dadka in ay u sheegaan xuquuqdooda ama sharciyadooda luqadooda ugu soo gudbiyaan maxaynu dadaalkeenu ka bixin intee la egyahay maxaana loo ka baahan yahay in dadkii oo dhan uu soo gaaro dadaal badan kama bixin annagu haddaan canaano la saddexdeena halka fadhiya inagu markaynu soo yaro weynaanaba ka soo gacno hurtada berigii aynu gurmiyaasha dhiganaynay iyo markii aynu universityka dhiganaynay maynu soo jeedin markaas kolba jiilba xilli buu kacaa laakiin insha Allah anaga jiilka cusub joogno oo kicinayna hurtada laakiin waynu ka seexanaa halkaas maxay yahay diinteedna waxay sheegaysaa in fi sabilillah haddaad u tulid maxay yahay walaalka ilaahay uu ku tuuraya
haddaad u fi sabilillah walaalka carruurta laga qaadayo waajib inaga saarana ka weeye carruurtayda iyo carruur kale la qaado isku mid muslimku weeye marka inaynu isku dayno inaynu dad qaada oo Soomaaliya oo hooyooyin iyo aababa oo isqora in la helo iyayna maxay la turshumo afka maxay haday tahay kuwan ka shaqeeya socialka haday tahay qariiqaanada haday tahay kalkaaliyiinta haday tahay macallimiinta inay turshubaan wax kasto ay arkaan waa muhiim laakiin way soo socotaa waan isleeyahay insha Allah laakiin waa laga seexday taas xaqiiqan أنا هرت مجعل إنا سوماليدا وحن كشيء لكن موضوعاً وحن هذا إنا شيء هو مهم أو إني ليس عنانتنا وفي عنتها مرمر قاركود أنا كسيدا أجن هيو دت كان لد جن هي وحيروان عرورتي إني فكرتك أيكي أمسيهن يوجد بيان أو سكولكي جامعة دي يوحلوس إلا سمينا والدين تسوماليدا مركا محيسة ميان sidii ayaka mabdaoodii dhaqankoodii diintoodii carruurtooda ugu gudbiyaan wixii sameeyana la isdhihi karaa dugsiyaali fureen waa wax fiican quraana lagu bartaa laakiin cunuga markuu iskool 8 saacadood soo joogo oo haddana uu aado Fritis Club waa meel dhalinyaro carruurta iskugu imaato oo weekendigii la siiyo quraan maxaa isbedelaya idala tahay haddaa fiirisiina anag intaas ururo Soomaaliya haysanaa laakiin ururiyaashaas meeqa urur haba ku dhacay ya maxamed ana kasi wadi kanaalkaas wuxuu wado maxamed carruurta kaliya u furan waad gooday ku soo celi waxaad intaasoo urur baatay waxaa jiro intaasoo ururo Soomaaliyeed oo magaalooyinka dhan ka jiraan intaas urur meeqa urura jirto oo dhalinyarada 25 systemka okay waxaan dhahay intaas urura jiro meeqa urura jiro oo u furan dhalinyarada 25 sano ka yar oo Soomaaliyeed aad u yar tahay aabayaashii meeli joogaan haystaan hooyooyinkii meeli joogaan haystaan kafiyaashoodii haystaan laakiin carruurtoodii meelna uma sameeyno ku tarbiyayaan luqadii ku baraan ileen waxbaritaanka dugsiga kaliya ma ahayo cunugan wuxuu u baahan yahay meel uu imaado uu dhalinyaro isku eg yihiin uu joogo oo dad Soomaali uu ku daya karo uu joogaan iyo ma jiraan marka ma jiraan waa taasna waa wax annaka aan keensano waa so macquul ma aha waalidiintii inay ayaka meel haystaan iyo carruurtooduna meel u haysanin oo carruurtooda u direen dad kale oo dhaqan kale leh ilaa iskoolkii waa muhiim footballkii waa muhiim laakiin carruurtan maxay sameynayaan markaas kadib klubay aadan ma jiraan hadda qofka markuu 18 sano xataa uu ka weynaado xataa Fritis Club xataa ma aadi karo dhibaatooyinka dhalinyarada waxay ka jirtaa 25 sano ilaa 18 sano ilaa 25 sano dadkaas dhibaatooyinka sameeyaan waalidiinta ma isweydiin dadkan maxay wax u sameeyaan uma furin meel ay dhalinyaradooda ku haystaan so halkaas ani waxaas ilaa halkaas ceebtaasaan leenahay inaan wax ka bedelno waayo haddaan rabno inaan dhalinyaradeenna aan wax barno oo dhaqankoodii diintoodii waxood dhan ay haystaan su'aasha ka imaanaysa khayarta naga daawanaysa Facebook Hanad Cabdi wuxuu yiri ma dhici kartaa haddii waalidku carruur badan dhalo in ay qaar dayacmayaan wuxuu ka wadaa waalidka Soomaalida oo ilmaha badan dhalo weliba hadduu أنا قرنا رير كويت هون عيال الله ميت قرن مضيعين مركا إلهي با قفنا حفظنا مركا سامور أبي هو يدي مثل جوجان ماي هو يقول لي يد بتوكرس يا هو يقول لي يد بتوكرس ما شاء الله مركا هو بس إلهي ووك لكن لو ما حد كرو أما لو ما دليل ديان كرو ما دام هاي أما هو كليات هاي إن عيالك بباديان أما أبعد كل نور عيالك بباديان الله أعلم ويش يتقار كل نوع هذا لو بدني بني العموية واحد دليل ما عرورته بدنا Soomaalidu dhanaan qaar inay dayacmayaan hadii waalidku sidoo waalidkay ku xiran tahay
ani saas ma aaminsani ani rabooryaasha oo akhriyey oo waalidiin laga qorayey oo caruurtooda in laga qaato la rabay waxaa ka mid ahay hooyo keligeeda oo 5 caruur haysato oo lagu dacweynayay okay qoftan waa hal qof 5 caruur haysaa sidee intaasoo dhan u kori kartaa keligeed waa dacwooyinka lagu dacweeyey hooyooyinka oo keligood jooga so caruur badan in la yeesho waa muhiim laakiin haddii qof uu sawirka ka maqan yahay ama aabihii ama hooyadii sawirka ka maqan yihiin way sii adkaanaysaa inay caruurtaas i badbaadaan ilaahay qof qasab ilaahay wuxuu qore le dhacayo laakiin kaysaska badankood markii la sii fiiriyo waxay ka hadlaan hooyo keligeeda oo luqadii aqoonin oo 5 caruur haysato sidii 5taas caruur u kori kartaa ma football ay wadaa ma iskoolkii tagtaa ma dharkii dhaqdaa so way jirtaa haddii hooyo caruur badan ii haysato keligeed tahay dada aaminsanba inay kasoo bixi karin waxaas cabdinuur wuxuu soo qoray intii aan fadhiyey golaha deegaanka udunso waxaan arag dacwooyin badan baa leesoo qoray laakiin hal dacwo ayaan ka hayaa ciddeenisha uu yiri laakiin dacwooyin kaloo badan baa leesoo qoray oo dad kale marka wuxuu ka wadaa dacwooyin kaloo ajnabi a yimid waxaad soo qoray wiil kale wuxuu soo qoray arrin ah soomaalidu inay yeelato xanaano ayad u gooni ah oo ka duwan yani oo meel leeshar ah meel fitness club oo ka duwan kii maxaa u diiday ayagu hadde waa muhiim inay caruurta ii haystaan meel oo dad Soomaaliyeed oo waaweyn ay joogaan oo u ah role model oo ay dadkaas ku daya karaan oo annaka waxbana fi sabilillah uma sameynayo marka fiirisid ileen wadankan wuxuu ku nool yahay organization yaal oo ayaka dartood wax u sameystaan annakana ma ayo maxaa waxaan ka faa'iidaa iyo waxaas yaan fiirinayna waa muhiim caruurta markii maanta maxamed waagiisa waxaan xanuunsanayaa internetka darisku ka soo qaadanaya umaleynaya halkaas marka anaa kasii waday halkaas wuxuu ka hadlayay maxay hayday xildhibaanada hayso ma freighterska in loo sameeyo ilmaha kulubyada taas waan isku raacsanayna maxay hayday mar kastaba waalidka iyo dadka bulshada ka shaqeeya inay u dhisaan ururada inay u dhisaan maxay hayday caruurta meel ay isku arkaan oo ay isku daydaan waa run anu haddaan sii eego waxa weeye weli waxay nagu jirta qabiilista markaas qabiilkii baa ina leexinaya ilaahay kaar qabaa haasaa ina leexinaya sidee haddii aad sii faahfaahiso maxamuuda mid kastaba wuxuu anigu haddaan ahay hebel isaaq maxarkaa isaaq baan u dhisaya wax haddii adu hebel tahay racaweyne baan dhisaya markaas intaynu odhan lahay waan iskacan qabanno oo maxaadan halkan ku jirta waddanka Soomaali ahaan ya laakiin ilmaheenu hal luuqad bay ku hadlaan qabiil walba luuqad gooni ma leh ma luuqad wada baran ya sax waa run laakiin dee badanka inagu hadday nahay Soomaali qabyaalad qabiil ma oran karo qabiilku wax fiican aan soo arko way laakiin qabyaaladii baa ina la leexadayo markaas 300 urur oo Copenhagen ugu ka jira baa mid kastaba intuu isku mashquulay laba isu raacay laba su'aalood ayaan ku hayaa oo ka imaanaysa dhanka Facebooka xiiray xasan wuxuu yiri sabab ayay muhiim u tahay maxaa ka dhigay muhiim yani in ilmo badan la dhalo ma wax muhiim ah in ilmo badan nabi ciise wuxuu yiri hala badiyo ciyaalka ay badiya laakiin macnaheedu dhan marayda joogtid kolayba inaad ka fakartid oo aad ciyaalka saga dhalin si lagaaga qaado khalad anu soo arko ina iyaga u dhashin soo noqo u sheegina xamad ma internetka ma dariska ka soo xadaysi welcome back su-aasha labaad waxay qoraysaa hooyo keligeeda yani maxaad kula talinaysaan anu haddaan ku bilaabo kay hooyo keligeeda waxaan kula talin lahaa anigu saaxiibada badan oo dhenishka yaqaana hadday dhenishka aqoonin inay isku wareeriso ama isku wareegiso dhinaceeda
dad badan oo maxay ahayd la socda oo ka war haya maxay ahayd inay saaxiibo badan oo ay samaysato oo caruurteeda garanaya xitaa waayo badanka ciyaalka marka laynaga qaado maxay ahayd meel kale la geeyaa waayo wax la waayaa runta marka la sheego dad haya maxay ahayd familiga ama qaar saaxiibaha hayn kara ciyaalka sharcigu sheegaya network family la yidhaahdo kaa way hayn karaan ciyaalkaaga anugu dadkaan aqaano ciyaalkooda haddaa laga qaado ilaahay kuma keene waan hayn karaa markaas anaa maadaama garanaya laakiin waxaa la rabaa inaad garanaysid haddaad garanayn waxay goranayaan may waxaan garanaya intaasoo habaryar ama eedo oo ciyaalkii soomaalida ha la qaaday aan ka shaqaynayna in loo geeyo dadkooda inaanan loo geynin laba wax midna waxay ma garanayaan ciyaalka midna danish bay ciyaalkii soomaaliya danish bay ku hadlaan markaa habaryartii danishka aqoonin lama hadli karaan markaa danishku waxay odhanayaan dee maba ku hadlaysi danish si ciyaal lagula hadlaysa ba lagu odhanaya waa lagaa badiyay markaas marka taas in laga taxadiro wey maxamed horta ani waxaa ogahay inay jiraan hooyooyin keligood degan oo weliba degan tuulooyin iyo ayaga keliya ama soomaali ka yihiin kaamara isku soo aadi kor xoogaa hoos baa jirta hooyooyin badanaa jiro oo caruur badan keligood haystaan oo tuulooyin yar la dejiyey haddii magaalooyinka anaka noo dhow haddii tahay magaalooyinkaas kale keligoodna waa yacni qofna ma haystaan dhibaatooyin badan in la soo kulmaan waxay la soo kulmaan dad Danish oo dhibaateynayo oo caynayo ama dhib u geysaday maalinweed waxaa kala hadlaya Cabdinuur hooyo ma fooboy deganeed mise ma aqaanin ninka hoosteeda degana nin nafta u keenay oo maalin kasta caynayo oo wax ka sheegayo keligeedna waayo wuxuu arkay inay keligeed tahay marka waxaas camal waxaa loo baahan yahay inay jirto urur oo waxaas camal ka shaqeeyo oo ka shaqeeyo caruurta iyo dhalinyaradooda waxa qaabilsan taasna ma haysano annakan waa isku daynay inaan sameyno welina waa wadnaa laakiin hadduu urur saas camal uu jirin ay dadka la soo xiriiri karaan oo la tali karo dadka dad badan oo dhibaataysan oo Soomaaliya jiro oo tuulooyinka yaryar degan oo lala soconin oo meel ii aadaanna ma yaqaanaan dad ii wacdaanna ma yaqaanaan wax loo sameynayana ma leh so ururkaas ha laga bilaabaan dhihi lahaa ani haddii wax la rabo in la xaliyo anuu sheege lamidaan hayaa yuulan ka dhacdayoo hooyo keligeeda nimanku cadaanka ay aad u dhibaan xitaa oo aan xitaa anuu ula hadlay oo u qoray oo uga dacwooday dhinacyada waana ku raacsan hadalkaas waa wax laga murugoodo su-aasha kale waxay dhigaysaa qoraysaa umu abraar cabdulle marka hooyo keligeed ah ama aabe iyo hooyo isla jooga keebaa lagu degdegaa caruurtooda yani in caruur yani keebaa lagu degdegaa in ilmaha laga qaado saas ka wadaa umaleynaya haddii aabihii ama hooyadii wada joogaan ama haddii ay kuma xidhna su-aashu ina ama aabbo qura keligii yahay ama hooyo keligii yahay badanka waxay ku xidhan tahay su-aashu ay u badan tahay siduu maxamed sheegay ina caruur haddaad 5 caruur haysid ama aabbo ama hooyo aad haatid oo aad wuxuu dhan dee aanad maxay dayac tirayn badankana waxay ka soo kalaan sheekada ah ciyaalkaaga dhan maarig waa taqaanaan haddaa kubad la geynin siduu maxamed sheegay ama meelo dhaqdhaqaaqa la geynin oo aad 5 caruur haysid markaas way kaa shakeeyaan taasaa ku filan marka kuma xidhnaan soo arko hooyo keligeeda aabbo keligeeda maxaa lagu leeyahay marka shakigaas waa maxay yani maxaa lagu leeyahay waxa lagu oran karaa maxay ahayd marka lagu arko haddaad ciyaalkaaga tusaalo wax dhaca oo shiro aan aragnay weeye hooyooda keligood ama aabbo keligii oo caruurtii aan keenin kubaddii caruurtii aan keenin meel dhaqdhaqaaqa marka guriga imaadaana gurigu fadhiyaya ama dabadda u jaacaya hadday waaweyn yihiin taas waxay odhanayaan khayr mas-uul wey gooranayaan gaaladu waxay gooranayaan siduu maxamed sheegay annagaa tarbiyad fiican siinayne annagaa qaadayna macni taas gooranayaan marka dee dhinaca gaalada laga eegana waa wax jira weeye haddaad u tarbiyen kari wada ciyaalkaagii annagaa ku tarbiyeynina weye marka taasay eegayaan laakiin haddaad tahay aabbo keligii ama hooyo keligeed oo caruurteeda oo aan garanayaanu oo badan oo iskuul iyo meel kasta waa la geeya caruurta si khataray u geysaa ma laga soo dabagelayda maxaa laga hadlayaa qofkaas waa siduu xasan sheegay ay u badan tahay laakiin ani waxaan dhihi lahay haddaan fiirino
maxaan samayn karnaa ileen waxaan ka hadalnayo dhibaatooyinka jiro iyo muxuu yahay maxaana lakaga baahan yahay ileen xataa haddaan dhahno fiiriya okay waalidiintan waa waalidiin xun caruurtii ha laga qaado dadkii loo geenaya xataa oo caruurta inay ilaaliyaan la rabay xataa sidii la rabay uma ilaalinayan waa aragnay raboodyaasha badankood waxay sheegayaan caruurta waalidkood laga wado inay criminalitydka u badan yihiin inay iskool kasoo dhamaysanin inay maskax ahaan u jiranayaan hadhowtii so xataa haddaan dhahno xataa waalidkan soomaaliga waa waalid xun oo diinta iyo dhaqanka xataa gees aan u tuurno intana lagama caawinayo yani intana lagama caawinayo annaka waxaan wareysanayo labo dhalinyaro oo ayakoo yaryar waalidkood laga soo qaaday labadaas dhalinyaro xataa baasaboorkooda deenishka xataa looma dalbanin so maanta waxay joogaan ayagoo oo qaangaaray oo baasaboor haysanin oo sharci haysaninna so xataa haddaan dhahno xataa dadkan waalid fiican ma xataa markii caruurtooda laga qaado xataa iyo caruurtooda xataa meelna laguma ogayo so maxaa xal ah muhiim anag maxaana laka rabaa sidee waxaan uga hortegi lahayn aan taas ka hadalno okay xalka hay aan ka bilaawno waa adiga ku bilaaw xasan wax kugu xigo maxaa xala ama maxaad ku dhiirigelinaysaa waqtigeena 4 daqiiqo noo haray ileen waxaan ka hadalnay dhibaatooyinka jiro markaan ka hadalnay okay waxa waa laba su'aala noo taala marka maxaan ka sameynaynaa haddaan dhahno okay ana camal waa shaqaystaa dhibaato ima haysato waxaan waxbana igama gelin ani ciddeyda la ilaashana waxa imaanaysa maalin 10 sano kadib 20 sano kadib caruurteena markii weynaadaan inay dhibaatooyinkan camal imaato haddaan hadda dhisi weyno urur ama network adag oo waxaan camal ka hortago markay caruurteena weynaadaan isla dhibaatooyinkii aan la kulmi doonaa so qofka hadduusa fahamsanayn waxaan dhacayo inay hal qof leeyahayn anaka dhanna saameyso wilgin hal ma gaarayno ileen waxaan maalin kasta dhacoosayo hal qofna kuma dhacooso waalidka Soomaaliyo aaminsan ama qofka Soomaaliyo aaminsan inuu asaga waxa dhan khatar ku yahay oo asaga diyaar u yahay oo dadka kale leh dhibaatada ay soo gaarayso waxa ogaataa inay maalin adaynu ku soo gaari doonto maalintaas waxa dhihi doontaa alla ma hal ii caawiyo alla ma hal ii sameeyo dad badan aqaana oo dhaheen waalidiintan waa waalidiin ilmahooda dayacay iskoolka ma tagaan barnaamij ma tagaan oo ayaka afaarahooda la soo galay oo waliba lagu soo oo dacwo qalad lagu sameeyay so waxaan hadii hadda laga hortagi waayo waliba waxa la hadlaa dhalinyarada ilaan waxa waalidkeen sida uga hadalna awal dhaqan kale ku soo koreen bi'a kale ku soo koreen luqadiya ku adag taas waxay keentay inay cabsadaan yani inay waxbana sameeynin yani inay waxooda la ilaashadaan laakiin anaka inta ku kornay inta wax ku baranay isla cabsidiina ma hayso wixiina la ka rabaa ognahay waxa xaq u leenahay ognahay hadii dhalinyaradu isku imaaweyso oo isku dayi weyso inay xal gaaraan oo la fiirin qofkan ani ma jeceliyo qofkan iyo ciidan iyo haddaan taas ku jirno maalin walbana caruur la qaadana maalinta ugu dambeysana cunugaaga loo imaan doonaa maxamed haddii aan yani hadalkaaga ama isku day inaan fahmo ma waxaa leedahay dadka isku filaanshaha gaaray oo waddankan ka shaqaysta oo dhalinyarta oo wax ka bartay haddii ay caawin waayaan dadkii waaweynaa oo gadaal waddan ka soo galay oo si danta guud laga wada shaqayn waayo dhibka adigana waa ku soo gaaraya miyaa leedahay ilaa dad badan adi xataa waa ogtahay dad badanaa la kulanay oo dhahayno ani Soomaalidan ma fahmi waxbana igama gelin ani ciddeedii iyo shaqadeedaan ka adkaana qofka hadduu saas u fakirayo ogaaw inaa keligaa nooleen waddankan oo dad kale aala nooshahay oo maalmaha kadib dadkan u baahan doontid haddaa dadka hadda dhisi weysid oo u dhisi weysid ururo iyo oo ka shaqay weysid danta guud maalintaadana ogow inay adigana qofna ku imaan doonin xasan haye maxaa kula talinaysaa oo maxaa dhiirigelin oo siinaysaa waalidiinta anu waxaan maxamed ka fahamsanay tii maxay ahayd lo'dii tiri libaaxa mar horaad cunta anigaba iska kay cun macni kala sheekada waa garanaysaa markaas ya waa lo'dii anu xasuusta sheekada
والله قروح بدن مركز لباح صدح لا أوي لباح إيمانيسا لباح أورنيا الله تاسوي كان قروح بدن ده اسكعنا يا بلا وعد تهي سنة نوح استشيء كذا دي مركز حنا عن بورنيا دي مركز عنا كاسورة كي كلو يمنع تانا كان قروح بدن ده عن عنا وعنا مركز دم كل يجيبوا دلوقتي دي تي قدام بيسلا كل جيت بيهانيسا أورنيسا مرة راضي عن داني كل يبه سكيك عن مركز تاسا محمد قروح عسنا هاي إن عيلها مركز لقى يجنا سو إلهي نو تربيين يسوع القرآن كينو شيء جيو وحليلي ومات باتين هذا ومات الصور كحنونه جدا باتين صور هذا حنونه جد كلهم بحكاريا وأنا صح عروضة إذا ما بتبادي سو هذا عروض شاركة بتبادين هم ملايين هذا هالكم بتبادين آخر ما بتبادي بدن كينك وحتى إذا ماركو كورنا ينو حينو توي نجا عادك تبيك نجا بدن يتض نجا بدن بينها فيان وإنه عادك تمرك الدين ده هيصنو إن دقن كين هيصنو إن أفكين هيصنو وإنه عادك طبعا إلا ولا نجا بديه marka inaynu isu feejignaano aynu ilaashano aynu iska war hayno meel kasta joogno taasna waxa la iska war hayn karaa sida maxamed sheegayo inuu ururo ama dad aqoon leh sida anagu isugu daynay inaanu dad bulshada ka shaqeeya ururadii aanu sameynay social workaha aanu isku daynay inaan sameyno oo ay anaanimada laga baxo waayo wadankan wuxuu ku dhisan yahay anaani iyo kelinimo oo waxay markay ciyaalkooda iska shir gaaraan dabada ugu eriyaan markuu la degay in ay lacag ka qaadaan hooyooyinka Soomaalida isagoo shay 20 shilin ka qaaday lacag adigoo 20 kun shaqaysta ana garanaya qaar shay 20 kun shaqeeya oo hooyadoo la degan oo aanay lacag qaadin oo hooyina ay dhimanayso waayo isaga anaanima gashay wadankana galay marka sideen isaga ilaalin karnana dad baa oranaya alla suuq ku hadlay waa maxay wuxuu ku hadlay Xasan war inaad ku kalsoonaatid dhaqankaaga iyo diintaada adiga shakhsiyan bay ku dhisaysaa marka maanta ma ka hadli karnaa laakiin bal aan isku soo jeedsanayna ku dhexdeena aynu isku tuubo dhexdeena waqti waqti shoogno waan ka bax waqtigu dhamaanaya yani hal daqiiqo qofkiiba hal daqiiqo anu wax kale ma hayo hadal biyo ma buuxeena Soomaalidu maxamed hal daqiiqo muqsirina ma soo xirina ما يحر انت هذلك كرنوا هذا ما انت وما سنتين dhammaantiin inta nagala socotay markayna Facebook maxamed iyo xasan aad bay u mahadsan yihiin dhibaatooyinkii iyo yani dhiirigelintii iyo waanadii ay la qaybsadeen aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi.